الباب كنت سنقرأ عن هاي فريد صار مشكلة كتير لا أفتانتي ليا أوي قلبي قاعد ما يود كيسو انتي قف كانو توري حتى تربى ما انت ويدي أفتانتي ليا أوي والله أنا نورشن كما قنعسني hooyadeen waxaan u maleynayaa inay soo shirqooshay waayo waxaan u shirqool ahayn muxuu noqon karaa aniga maanta gabdhaha ficay kulligood way faraxsan yihiin iska baashaalayaan murug dhan ma hayso alxamdulillaah ay dhahayaan laakiin ani waa kana hadda waa murugeysanay meeshay ficay ka qoslayaan waa kana ani gurigana ilada iska dhex fadhiyaa oo markii liiga sii baxay ee lii soo galayo gafuurka la ii taaga noloshan anigu ma qanacsanin noloshan nolol cariiri ila egta wayba tahabo ataa ila egta ma dhihi kari sababtoo qofku uu qanacsanayn adina waxaa ratid inaad samaysid inaad asiga soo jiidatid soo jeesatid aa rataa asagana kuuma soo jeesanayo laakiin saa ee tahay aniga qof dumaraa ahay xaaskiisa ahay wax kasta igu qaadato inaad soo jeesado waa ninkeyga because anigu nin ii yahay qofka lagulle uma macaanaanayo inaan la fadhiisto weydiiyo waxsee u jiraan isku dayo inaan fahmo asagana uu anigii fahmo ilaahay khayra ka dhigo insha allah barna igama waayin dareen xiisaha abuura inti dirac laga filaay dulqandina man yaraysan dareen barna igama waayin dareen xiisaha abuura dirac laga filaay dulqandina man yaraysan magaran tumadiyo tagniinka magaran dalbashada waraaqda didimada nacuu dhacay balmaa sabab ilaaya doontii magaran tumadiyo tagniinka magaran dalbashada waraaqda didimada nacuu dhacay balmaa sabab ilaaya doontii ما ايه قصتي انا كلها داربي انا ما انتو حاجة markaa kuusoo dhawaado waa iga sii dheeraanaysaa mise la fadhigeyga ku dhawaayo afka ka hadal caadi waay saas hadee tahay anaa inta soo fadhiisanayo maadaama aniga waxaan rabaa inaan wada hadalno ani adi horta waa aragtay ani adiga inaa laisku keendare oo waalidkeena isku kondooqeen ani adina aqoon isku maan lahayn
ساعتين ما أنت أنيقة وأجيد الدلال والبأسمينها أذيك كام فرحينوي أنا وحاسكو دي إنا أذيك فرحيو إلى هذا اللورت تليفون كاقول كديك أنيقة حاسكا إيه هتا حوغوير يقدري يعني تليفون كاكو هالليسي أما أكو تشتقرينيسي ما أنيقة قيمة بدن أصحابتي أنا لشيكيسان الله لا عادي لما لا أصحابتي أنيقة كحق بدن أنيقة كحق بدن ما أنت لأن أنا حاسكا إيه أتا وحير يقدري أنت أكالها الله بس ما إلا هذا شو بلاد ليس سمع أكو مغلاي ديها كام مغلاي إنا هي أنيقة يسيسي داربا تنشون كاغا ما أنا أركوي أدو يسينيسي هواي وكاسة هذا المركواي إيه حاجي هذا وأجيدا إن لسكو كان دري ما أنت أنا وأجيدا مسؤوليتي إذا حاسنمو إنا سكستي وقالت أكسو بحايو لكن أدي واحدا كما أركي أدي أنا واديه كرامانتا أدي هدي حوق لي وكادري أنبو اللي سوق سبي دعاء سوقات سوماهن ما أنت سكستي أنا مسؤوليتي إذا حاسنمو وأجيدا إنا ددالا إنا كسو بحا أدي هدي حوق لي وكادري أنبو واللي سوق سبي جعيل أمو إنا أنا ولي كوارك عمل أي ولا دخميسا إنا كقيانو عمل أي ولا دخميسا ما أنت أني كي قاته مو قيام كلي بنانك نمن مكراسين كلي كوز أنا قف حاسة إيه جوريجا كوجوجا أنت دلالة وأجيدا أذيك محاطة وحير أو جعلها تأيتو سلا أذي أسكت دينو إنا اسفهمنو because هدان اسفهم أروس كينا مشقينا هايو أنا واحد استوى اسمي أذن جعل ميتو سوسي intan ka badan ani waxa suubiye ma kasaay ee hadda go'aanka aad ku jirtaa ina sida xaaskaaga amal ila dhaqantid isoo dhaweysatid wax kasta igu qaadato ani waa suubina laakiin adii ma ka arki dadaal labadeena laba qof isku xiranaanay oo maanta la isku keen xire xalaala kuwa ehe marka ana waa ka mudanahay ina si fiican ila dhaqantid sida ila dhaqmaysid ma aha marka hadda adiga ninka ragga oo guriga mas'uuliyadiisa qaaday ani maanta sidee ila dhaqmayso adima kula saxsantahay runaantii horta labadeena laba isdoortay ma aan ahayn laba qof oo isjecel oo waqti soo wada qaatay ma aan ahayn waxaan ahayn laba qof oo waalid isu keenay aniga maanta adi shalay kuma garanayn adigana ani shalay imaadan garanayn ani xiriiraan lahaa nin dhalinyaraan ahay dad baan la hasaawaayay waqti la qaadanayay jacayl baan haystay farxad baan haystay waalidkayga dartiis ayaa la isugu kaay daray labadeena run ahaantii labada qof ayagoon is aqoonin haddii guri la isugu geeyo oo maaragtay waalidka intay isfahmaan la isku guuriyo guri la isugu keeno way adagtaasi isku fahmaan waayo ana dabeecad baan leeyahay dhaqan aan leeyahay ma garatay adigana dabeecadeyda soo ma bedelin adiga dabeecada leedahay adigana dhaqan aan leedahay ma garatay anigana ma ahan maxaa la dhihi jiray dhaqankaadi iyo hadda waqtigan anigoona ku fahansaneyn waxaa tahay inaan haddana dhaqankaagi iyo dabeecadaada inta durbada aan la qabsado oo maaragtay dee sidii qof ani aan jecloo kale aan kusoo dhaweysto ma ahan ma garatay aniga run ahaantii qof aan ka helay matiid waxaa tahay qof gurigaas la iskugu kaaya keenaanay adiga ma garatay qaab aan kuula dhaqmo iyo qaab aan maaragtay waqti kuula qaatana waan garan lahay because qof aan jeclahay ama waqti aan la soo qaatay matiid labadeena maanta gurigan waxaa la iskugu keen soo xiray inaa isfahano moogtay isfahanka waa shay muhiim ah aniga kaama helin aniga jeceela ku jeclay dartiis liiguma kaa soo darin laakiin still what I'm trying so more waa dadaalaya inaa ka soo baxo mas'uuliyadda xaasnimo mise hadwaani ma kasay intan ka badan waa niyad jabe okay run ahaantii horta gabar walaashaa tahay ma jecli inaad adiga agteyda aad ku niyad jabto waayo aniga gabar ila dhalatay waana damqanaya ma garatay mideeda labaad aniga waxaa tahay maanta xaaskayga dhabta ah run ahaantii shalay waan sii jeeday oo waxaan ku jeeday weli asxaabteydii iyo dhallinyaronimadeydii aan ku mashquulsanaa iskamana dhaadhicinin inaan ahay nin xaas ah iskama dhaadhicinin inaan ahay maxaa la dhihi jiray nin mas-uuliyad qaaday soo marka walaashii macaan waan ka xumahay waxyaabihii hore oo na soo dhexmaraanay adiga dhibaatadii aan ku marsiiyey iyo dhaqan xumadii farada badneed aan kugu hayay intaba waan kaa raalgelinayaa
wixii maanta ka bilowdo waxaan kaa codsanayaa adigan inaan markaan qalbigii sidan maanta uu kugu damqaday aan kuu siiyo inaad adigan iigu tixgeliso lamaane isjecel waqti wada qaadanayo guurkooda inta dambana uu farxad u noqon doono inaad adigan ii noqotaan rajeynaya waayo Soomaali waxay tiraahdaa waxa banaanaha lagu haayo waa been nolosha dhabta ah waa guurka maantana waxaad i dareensiisay nolosha dhabta ah inay tahay midda guriga ma garatay shalay waalidkaan isku keenay oo isku guuriyay nin walba wuxuu yahay ma uusan ogeyn hadda laakiin maanta waxaan haystaa qof aad ii jecel qof iga daryeelayso qof iga xumaanayso qof aad ii jecel qof marwo ah oo guri kaligeed ii joogto ayaan haystaa ilaah ayaa mahad leh maanta i garansiiyey inaad xaaskayga dhabta tahay shalay ma ogeyn run ahaantii laakiin maanta waan ogahay aad baan maaragtay kaaga raali gelinayaa dhibaato walba aan ku soo marsiiyey iga raali noqo xabiibi ayaan ku leeyahay hadday macquul tahay ma ani raali waa ka kana soo kac fadhiga meesha hadda afadhiiska soo kac halka ay soo fadhiis adoo raali ah please raali okay raali please raali waa hadda abtaanka ayya iga raali noqo hadda waxa isku dayayso ma ina ifahantid boqolkiiba hadda waa ku faraxsanahay adii ii faraxsan tahay waa faraxsanahay soo fiiri qosol maasha Allah maad ka bilaabato waxaan rajeynayaa insha Allah inaan isku faraxsanaano lamaano gurigoodana si qurux badan u sameysay insha Allah inaan noqono waana ka farxin doonaa insha Allah hadda kadib okay noloshaada aan doonaa farxadaada aan doonaa jacaylkaada aan doonaa ninkaadana waa wanaay soo ma insha Allah dilaayadmo ma ka farxin doonaa insha Allah in badan waa ma santay maadaama maanta hadalka soo jeediyay iga dhigeysatay waa ku hami weynaa in iga dhigeysan doonto ifahmi doontid anina inta yaroo ku dhibay maanta dhan ka daba ordaay karaali noqo runtii qofka bini'aadamka dhagax ma ahan wixii loo sheego waa uu qaata badanaa qalbiga maxaa la dhihi jiray jilicsanne waxa weeye wax walba uu fahmaa marka hadeertaan waxa weeyaan ilaah ayaa mahad iska lorti ka faansiiyay qalbigayna ku beeray maxaa la dhihi jiray qalbi wanaag siiyay alxamdulillah soo marka iga raali noqo boqolkiiba waxaan maaragtay kugu midaala ma garanayo qof aad wanaagsan tahay gabar walba Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa insha Allah inay sidaas kala tahay ninkeedana ay xaqiisa soo dhacsan doonto waayo wuxuu isku qurxinaa u labisanayaa mar walba qof dumar ah kale inuu maaragtay shukaansado Soomaa maantana qofka isku qurxinayo isku labisayo barfuunka u marsanayo kulli adigu weeyaan adigu baana kulli ii labisan doonto ii qurxisan doonto insha Allah waxaan rajeynayaa noloshayda iyo nolosha hore inay wax badan ka qurxaan insha Allah وامل هيجا أورين ونها هيجا سين أستمع للحماتي حتى جاي كموقن